nabadi wanaagsan sheekadu waxay ku bilaabanaysaa iyadoo layna tusaya laba gabdhood oo walaal ah oo lagu kala magacaabo Ginger iyo Bertie. Labada gabdhood waxay wateen faras, waqtiguna wuxuu ahaa waqti uu dhacayo baraf saayid ah. Muddo kadib waxay ka degteen faraska waxayna bilaabeen inay ku soo kaxayaan gacantooda. Abaar kadibna labada gabdhood waxay arkeen madax xayawaan oo saaran geed, sidoo kalena waxay arkeen meel taanda ah oo lagu daadiyay dhiig aad u badan. Abaar kadibna labadoodu waxay labada gabdhood u sheegtay inay weyday sidoo kalena waxay bilowday inay labada gabdhood siiso laba katiinadood. isla markiina labada gabdhood waxay bilaabeen inay xirtaan katiinadaha markay xirteen faras iyo duurka. Ginger iyo Bertie waxay bilaabeen inay soo baacsadaan faraska si ay u qabtaan. si lama filaan ah waxaa layna tusayaa Bertie inay ku dhacday dabin yaalay duurka. Ginger waxay walaasheed u sheegtay inay aadayso meeshii ay joogtay haweeneyda duqda ah si ay u soo weydiiso caawinaad. kadibna waxay bilowday inay soo aado meeshii ay joogtay haweeneyda. Ginger markii ay timid teendhada waxay ogaatay inaysan joogin haweeneydu. dhanka kale Bertie waxay ku warheshay meesha inuu yimi xayawaanka yeydu. sidoo kalena waxay ogaatay meesha inuu yimi nin lagu magacaabo Hunter waxaa gadaal uga timid Ginger waxayna bilowday inay madaxa ku dhufato. isaguna wuxuu bilaabay inuu haweeneyda jeedal ku dhufto. kadibna wuxuu bilaabay inuu Bertie lugta uga saaro dabinka. sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu daaweeyo meeshii uu ka soo gaaray dhaawaco. intaas wixii ka dambeeyena labada gabdhood u sheegay inay soo raacaan. abaar kadibna waxaa layna tusayaa inuu labada gabdhood keenay qalcad la ilaalinayo. labada gabdhood waxay arkeen albaabka laga galaya qalcadda inay ku yaalaan isku tallaabo badan iyo dhiig aad u badan. meesha waxaa yimi nin lagu magacaabo Cormac wuxuuna bilaabay inuu ka furo albaabka. si kastaba ha ahaatee labada gabdhood waxay bilaabeen inay soo galaan gudaha dhismaha. labada gabdhood markay soo galeen gudaha waxaa layna tusayaa nin lagu magacaabo Gilbert oo si la yaab leh u fiirinaya. sidoo kalena waxaa layna tusayaa meesha inuu yimi nin lagu magacaabo James wuxuu bilaabay inuu anaanto Cormac. wuxuu ku yiri maxay tahay sababta aad labadan dumarka ah u soo gelisay gudaha qalcadda. meesha waxaa yimi nin lagu magacaabo Rowland wuxuuna bilaabay inuu difaaco labada gabdhood. Ginger waxay Rowland u sheegtay walaasheed inay lugta la gashay dabin. si kastaba ha ahaatee Rowland wuxuu labadooda u ogolaaday inay soo galaan gudaha qalcadda. labada gabdhood markii ay soo galeen gudaha waxaa loo keenay dhakhtar lagu magacaabo Murphy. Dr. Murphy wuxuu bilaabay inuu daaweeyo lugta Bertie. Ginger waxay dhakhtarka weydiisay cidda laynaysa dadka ku nool magaalada. dhakhtarku wuxuu bilaabay inuu ka gaabsado wax jawaab ahna ma uusan siin. intaas kadibna waxaa layna tusayaa labada gabdhood inuu soo kaxayay wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Finn. wuxuu labadooda u sheegay meesha inay deganaan jirtay Rowland xaaskiisii oo geeriyootay. ugu dambayna wuxuu u soo baxay dibadda. abaar kadibna waxaa layna tusayaa Rowland inuu labada gabdhood ku casuumay casho. labada gabdhood waxay ka soo qaybgaleen kulanka cashada. dhammaan kooxduna waxay bilaabeen inay si wada jira u casheeyaan. waxyar kadib waxaa layna tusayaa inuu soo kacay James wuxuuna bilaabay inuu anaanto Hunter. wuxuuna ku eedeeyay inuu labada dumarka soo gelayay qalcadda. Hunter oo xanaaqsan wuxuu ka soo kacay fadhiga wuxuuna bilaabay inuu cunaha midi ka saaro James. isla waqtigaas waxaa layna tusayaa inay soo kaceen Rowland iyo Gilbert waxayna bilaabeen inay kala celiyaan labadooda. intaas wixii ka dambeeyena labada gabdhood waxay bilaabeen inay ku laabtaan qolkooda. waxaa ka daba yimi Gilbert wuxuuna labadooda u sheegay magaalada inay ka buuxaan bahalo horor ah. ma aysan dhegaysan hadalkiisa waxayna bilaabeen inay guriga hoosta ka soo xirtaan. habeenkii markii la gaarayna waxaa layna tusayaa Ginger oo ku riyoonaysa riyo aanan wanaagsanayn. intaas kadibna Ginger waxay bilowday inay ka soo kacdo hurdada. abaar kadib Ginger waxay maqashay jabaq ka soo baxaysa qol ku yaala agteeda waxayna bilowday inay soo gasho qolka. Ginger waxay isha ku dhufatay qof ka dhaqdhaqaaqaya qol kale oo ku yaala agteeda. Ginger waxay soo gashay qolka isla markiina waxay aragtay wiil ku jira gudaha qolka waxayna bilowday inay la hadasho balse wuxuu bilaabay inuu ku soo boodo sidoo kalena daniino. subaxdii markii la gaaray waxaa layna tusayaa Ginger garabkeeda inuu ka socdo dhiig. waxay walaasheed u sheegtay inay si degdeg ah uga baxaan gurigan aadaana meeshii ay ka yimaadeen. si kastaba ha ahaatee labadooda waxay soo qaateen seef waxayna bilaabeen inay si dhuumasho leh ku soo baxaan. abaar kadib labadoodii waxay yimaadeen meeshii uu ku yaalay albaabka waxayna bilaabeen inay furaan. meesha waxaa yimid James wuxuuna bilaabay inuu dhirbaaxo wejiga uga dhufto Ginger waxay ka xanaaday ficilka uu ku sameeyey waxayna bilowday inay isku diyaariso inay la dagaalanto balse waxaa gadaal uga timi Bertie oo wadata qori waxayna go'aansatay inay u dhamayso. inta aysan dilin ka hor James waxa ku warhelayay inay soo galayaan albaabka. waxa uu kayliyay ciidamada isla markiina waxaa layna tusayaa meesha inay yimaadeen ciidamadu. si lama filaan ah waxaan ogaanaynaa iyadu inay ranineen mid ka mid ah ciidanka. abaar kadib waxaa layna
tusayaa Gilbert oo soo kaxayay Ginger iyo walaasheed Bertie wuxuu keenay qol ka mid ah qalcadda waxaana bilaabay inuu dakada uga soo xiro labada dumarka ah waxay ku warheleen qolkan inuu ka guuxayo mid ka mid ah yeeyda sidaas darteed labadooda waxay bilaabeen inay u soo cararaan qaybta kore ee qalcadda daqiiqada gudahood meesha waxaa timi yeeyda waxayna isku dayday inay soo jabiso derbiga balse isla markiiba waxaa layna tusayaa Hunter inuu madaxa fallaar uga dhuftay yeeyda Ginger oo xanaaqsan waxay Rowland u sheegtay ficilka uu ku sameeyay Gilbert Hunter wuxuu bilaabay inuu fiiriyo Bertie sidoo kalena wuxuu ku yiri madow iyo cadaan wuxuuna bilaabay inuu isaga tago meesha waxyar kadibna waxaa layna tusayaa Ginger sankeeda inuu ka socdo dhiig Bertie waxay aragtay dhiig ka dhacaya garabka walaasheed waxayna ogaatay dhiigan inay sababtay qaniinyadu habeenkii markii la gaarayna waxay ku wareeshay dhiig saayid ah oo ka socda garabka walaasheed subaxdii markii la gaaray waxay walaasheed u soo kaxaysay dhankaas iyo Dr. Murphy jidka intii ay marayeenna waxay arkeen bahal aad u weyn ay soo qabteen ciidamadu gudaha markay soo galeen waxay arkeen Dr. Murphy oo wata qori iyo ninkii ay qaniintay yeeydu daktarku waxa ninka u dhiibay noole yar oo loo yaqaano Leet waxaana u sheegay inuu saaro jirkiisa ninka waxa soo qaaday noolaha waxaana bilaabay inuu saaro shafkiisa isla markiina noolahu waxa bilaabay inuu weynaado taas oo ay ka dhigan tahay inuu isku bedeli doono bahal daktarku waxa bilaabay inuu joogto sidoo kalena labada gabdhood weydiiyay waxay u baahan yihiin balse labada gabdhood waxay sheegeen inaysan isaga u socon labada gabdhood markay soo laabteen Ginger waxay walaasheed u sheegtay wiilkii qaniinay inuu isku bedelay bahal iyaduna waxay sheegtay inay isku bedeli doonto bahal abaar kadib waxaa layna tusayaa Rowland oo wiilkiisa u soo wada cunto isla markiina waxaa laynoo sheegayaa wiilkiisu inuu isku bedelay bahal maalintii xigtay Ginger waxaa u yimid nin lagu magacaabo Claude waxaana u sheegay Rowland wiilkiisu inuu isku bedelay bahal dayaxa markuu buuxsamay waxaa layna tusayaa Ginger jirkeeda inuu ku socdo isbedel habeenka saqdiisii dhexna waxaa layna tusayaa inuu dhankeeda u soo socdo Jeffrey oo ah wiilkii qaniinay haweenayda waxay dareentay culays kadibna waxay ka soo booday hurdada nin lagu magacaabo Shimos wuxuu maqlay jabaq ka soo baxaysa gudaha guriga wuxuu soo qaatay mindi kadibna wuxuu bilaabay inuu soo aado meesha ay ka soo baxayso jabaqdu Shimos wuxuu dareemay jabaqdu inay ka soo baxayso qaybta kore ee guriga isla markiina waxaa layna tusayaa inuu soo weeraray Jeffrey Shimos wuxuu saxan ugu soo dhacay dhulka abaar kadibna meesha waxaa yimid Gilbert James iyo saaxiibadood isla markiina waxay Shimos korkiisa ku arkeen timaha Ginger James iyo saaxiibadii waxay bilaabeen inay soo kaxayaan Ginger kadibna James wuxuu bilaabay inuu ceejiyo haweeneyda maxaa yeelay wuxuu aaminay inay iyadu soo weerartay Shimos ka hor intuusan dilin guriga waxaa soo galay Gilbert oo wata qori waxaana bilaabay inuu ka celiyo muddo kadib James iyo kooxdiisu waxay soo afduubeen Ginger waxayna go'aansadeen in la tijaabiyo inay qabto fayraska iyo in kale meesha waxaa yimid Rowland daktarka iyo intooda kalena waxay sheegeen in la tijaabinayo Ginger wuxuu la soo baxay baasooladiisa waxaana bilaabay inuu u dambeeyo daktarka kooxda intooda kale waxaa gashay cabsi waxayna bilaabeen inay isaga tagaan meesha intaasi wixii ka dambeeyay Bertie waxay bilowday inay soo kaxayso walaasheed Ginger oo xanaaqsan waxay walaasheed u sheegtay inay doonayso inay disho Jeffrey oo ah wiilkii qaniinay waxay soo qaadatay seef ugu dambayna waxay u soo baxday dibadda Ginger waxay ogaatay Jeffrey inuu joogo xabaasha hooyadii waxayna soo aaday dhankiisa isla markiina waxay isha ku dhufatay James oo dibadda u tuuraya wiil lagu magacaabo Milo Ginger waxay bilowday inay si tartiib ah u soo aado dhankaas iyo xabaalaha isla markiina waxay aragtay Jeffrey dhammaan jirkiisa inuu ku dhacay isbedel ka hor intaysan dilin waxay ku warheshay xabad ku soo dhacday agtooda gudaha guriga Hunter wuxuu u yimid Bertie waxaana u sheegay walaasheed inay isku bedeli doonto bahal sidoo kalena wuxuu u sheegay inay ka dheeraato walaasheed dhankaas iyo dibadda waxaa layna tusayaa James iyo saaxiibadii oo shabaq ku soo riday Jeffrey abaar kadibna waxaa layna tusayaa meesha inuu yimid Rowland oo ka murugaysan isbedelka ku dhacay wiilkiisa Rowland wuxuu la soo baxay baastoolad waxaana bilaabay inuu joogto Jeffrey muddo kadib Bertie waxay walaasheed ka soo saartay qalcadda maxaa yeelay ma aysan doonayn in la dilo si lama filaan ah labadoodu waxay dibadda ku arkeen Milo si kastaba ha ahaatee Milo wuxuu bilaabay inuu soo kaxeeyo labadooda Milo wuxuu dareemay cabsi wuxuuna bilaabay inuu la cararo naftiisa waxyar kadib Bertie waxay ku warheshay Ginger inaysan joogin agteeda waxay bilowday inay fiiriso afarta koone sidoo kalena raadiso walaasheed waxyar kadib waxay aragtay walaasheed oo afka